الله 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 طبعا كان عشير رمضان توقف ضبية حين أغنى بشهر رمضان إنه هاي بشهر وقفض البضان صنعنا إسلامك وحين أغنى هاي طبعا كهبينا وقدم بيانا إن رمضان وصيفة بدأي طبعا كان دنبه بشهر دين soo gaadhay bishiina ay wax yar ka laaban yihiin taasi waxay tilmaamaysaa oo digniin u tahay 20kii bisha ee tagay ninkii xumaan ku jiray oo isdaba qabo ninkii wanaag iyo khayr hayay oo una siyaadso rabbigaana ku mahadi isaga ku waafajiyay idan maanta kuma talagalin ramadaan taas iyo fawaa'ideeda iyo waxayna ka warramo waxaan iskaga talagalay waraa ogsoonaydeen inaan idinku adkeeyo العشر الأواخر طبعا كالضمبة نبي عليه الصلاة والسلام حوق من شري يسألوا عبادة استاه وور علماء إن بدن أيضا كلا حظين لكن من باب التأكيد ين ليسقع العلي سي قلبي جودكته أما يعمل النقطة أما يدقن كأنه وغموقته أيما كنت لقلينا إذن إلى هذا يعني أنت علماء الشيء سيرنا نيد كسات كأيه طبعا كان عشر رمضان توقدم بيا حين أغنى بشهر رمضان نيت هاي بشهر وقفض بدن سنتك إسلامك وحين أغنى هاي طبعا كهبينا وقدم بيانا إن رمضان وصيفة بدأي يعني علماء وحيد هذا سنة كوردن مرك الله يسقط داره هدي طبعا لقيمة مالمها مرك يتهيب علماء ويد هذا طبعا كمال مود ذي الحجة وقفض بدن هبين هذا مرك يتهينا بيد هذا طبعا كهبين رمضان وقفض بدن مرك طبعا كان عشاء رمضان وقدم بيا هبين نديده ayaa waxay yihiin 10ka habeen ee sanadka oo dhan marka la isku daro ugu fadli badan haddana waxa ku sii jira habeenka de sanadka oo dhan marka la isku daro isaguna ugu fadli badan idan waa bishii u fadli badnayd iyo 10kii habeen ee sanadka ugu fadli badnaa iyo habeenkii sanadka oo dhan ugu fadli badnaa oo 10kan laga dhex filayo ayaa jira haddaba hadyigii nabiga calayhi salaatu wassalaam iyo dhaqankiisu muxuu ahaa hadyiga nabigu inuu ku dadaalo calayhi salaatu wassalaam ku saliya nabiga inuu ku dadaalo taacada iyo ilaahay u dhawaanshiyihiisa si aanu ugu dadaalin habeenada kale sanadka oo dhan yani 10kani way uga calaamadsanayeen marka la eego sanadka kale sanadka oo dhan intiisa kale أيها الأحبة في الله waxaan soo gaarnay 10kii dambe ee bisha Ramadaan Ilaahi tabaaraka wa ta'ala ayaa mahad iska leh oo ku amaanan inuu ina soo gaarsiiyay nabad iyo caafimaad iyo khayraad badan Ilaahi tabaaraka wa ta'ala inuu soo gaarsiiyay Allah si tabaaraka wa ta'ala waa mahadsan yahay isagaan weydiisanaynaa inuu bisha inoo dhammaystiro oo khayr iyo wanaag ilaahay noogu dhammaystiro ina waafajiyo 10kan dambe ee bisha deenu soo gaadhay bishiina ay wax yar ka laaban yihiin taasi waxay tilmaamaysaa oo digniin u tahay 20kii bisha ee tagay ninkii xumaan ku jiray oo isdaba qabo ninkii wanaag iyo khayr hayay oo una siyaadso rabbigaana ku mahadi isaga ku waafajiyay nabigeenu salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi 10kan dambe wuxuu bixin jiray dadaal uusan bixinin waqtiyada kale wuxuu u dadaali jiray si uusan u dadaalin bisha inteeda kale dadaal ziyaada ah oo laaban oo aad u korsan ayuu nabigu la iimaan jiray salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi sababtu waxa weeye 10kan dambe waxaa la dhihi karaa waa bisha
laf dhabarteedii way dhuuxii waay meeshii ugu muhiimsanayd bisha waay waxaa ku jira habeenkii laylatul qadriga ahayd sida nabigeennu tilmaamay salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh waxaad ka raadisaan buu yidhi 10ka dambe ee bisha haddana habeenada tirada isdheer xadiid khaasa wuxuu ku tilmaamay nabigu sallallahu alayhi wasallam habeenka 27aad axaadiista qaarkood waxaa ku sugan 21 habeenkay ahayd in laylatul qadri ay noqotay laakiin nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi la halmaansiiyey saxaabadu markay amaaraadkii calaamaadkii ay fiiriyeen sida uu tilmaamay 21 bay ahayd taasi waxay tilmaamaysaa habeen gooniya oo loogu tashan kara ma jiree waxaa suurtagal ah 10ka in ay sanadba habeen gasho waxaa dhici karta inay sanad 21ka gasho sanadna 23ka gasho sanadna 25ka la geliyo sanadna 27ka sanadna 29ka marka adiga waxaad haleeli kartaayood hubtaayo waxay tahay marka 10kaba dadaal bixisoodan kala goynin inaad helayso shaki kuma jira marka saas daraadeed baa nabigeenu wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh war inta kale oo dhan haddii lagaaga xoog batood kari weydo oo lagaaga qaalib noqdo ama aad ka caajisto 7da dambe ku taagsa buu nabigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh sidaas daraadeed habeenkaasaa ku jira si gooniyuu nabigu u raadin jiray salawaatu rabbi wasalaamu calayh lianna waa jawhar wax walba ka qaalisan in la raadiyana ay tahay